duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo ay wehelinayaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah cuqaasha gobolku ayaa maanta soo kormeeray riigbiyoodkii u dhawaan dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland kaasi oo maalmihii u dambeeyay qodistiisu si rasmi ah uga socotay duleedka magaalada waxaanu duqa degmada Oodweyne halkaasi howlwadeennada Riigaasi gacanta ku haya ku wareejiyay tiro xoolo nool oo loogu talagalay in loo qalo shaqaalaha uga hambalyeynaya uga mahadnaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mashaariicda ballaaran ee gobolka Daadmareer ka socda uu ka mid yahay Riigan aan maanta dul joogno iyo laba riig oo kala degmada Xaadsaalax iyo Xaaxiya mashaariicda caafimaad ee ka socda deegaanka waxaan maanta ku wareejin doonaa shirkadda shaqaalaha Somdrill 10 neef oo ariya aan insha Allah ugu talagalay deeq horaanteed intii Riiga wadaan kolba inaan ka qayb qaato dawladda hoose waxaan runtii ku faraxsanahay ilaahayna uga ka baryeynaa inuu ilaahay ceelbiyoodkan nooga dhigo ceel midho dhala ari kale ka horeeyay ilaa maalinkii halka yimaadeen arigu kama kala goyn marka intii hore iyo intanba waan idinka gudoomeynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin Chief Caaqil Mataan Xaaji Xuseen Chief Caaqil Axmed Xuseen Libaax Chief Caaqil Cabdi Guuleed iyo waliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumaddiisa uga mahad celiyay mashaariicaha wax ku oolka ee ka wada gobolka waxaanu kaaga mahadnaqaynaa madaxweyne biyo waad noo bilowday MCHadii waad bilowday mashaariic badan baa sida Maayarku sheegay aad noo gelisay haddana gobolka Daadmareer nahay laakiin sida Maayarku sheegay gobolku uu badan yahay waxaas wax ka taraya male tii ugu weyneed baa kugu hadhay waa wadadii waxaanu qabnaa annagu haddaan nahay reer Oodweyne amba gobolka Daadmareer dawladihii soo maray ilaa maalintii lagu soo noqday waddanka annaga dhagax xun baa dhigi jiro laga dhaqaaqi jiray maanta waxaan aragnaa wax qabad baan aragnaa waxa muuqda wax qabad dhab ah waxaanu doonaynaa madaxweyne in gobolka waa laga seexday aad samayso mar walba dad isku kiin xora adiga iyo gobolka oo adag waxaan aad iyo aad haddaan nahay gobolka Daadmareer ugu hambalyeynayna isagoo subad runahaya ee aan footar beenbeena hayn waxaan leenahay madaxweyne gobolka Daadmareer waa dad ku xidhan qaranka Somaliland si fiican bay shaqada u socotaa madaxweyne reer Oodweynena aad bay kugu riiqsay waxaad u qabatay runtii Maayarka waxaan ku tilmaami karaa inuu haaneeday shaqadii uu u hayay degmada iyo gobolkaba Muuse Salebaan Maxamed warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Oodweyne